mar walbo saddexdan aad ka fiirsatid oo saddexdan aad hagaajisid waa mar walbo aad guulaysatid waa mar walbo qalbigaaga afkaaga maskaxda noloshaada dhanba ay toosto assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti waxaana wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada muuqaalkeenan waxaan kula wadaagi doonaa saddex hadduuse qofku ka dhowrsanaan aysan diintiisa u badbaadin noloshiisa oo dhanna aysan badbaadin saddexdaas waa saddex inta badan looga digo dadka doonaya inay cilmiga bartaan iyo dadka kale doonaya inay noloshooda horumar gaarsiiyaan iyo dadka xilalka haya inta badan qaarkood waa looga digaa boqolkiiba boqol saddexdan waxay yihiin saddex nolosha si dhaba u taabata saddex waxay yihiin inta badan looga digo dadka oo dhanba culimadu si gaar ah ayay uga sii digaan ardayda ay waxbarayaan si gaar ah ayay uga sii digaan haddaba saddexdu maxay yihiin intaan muuqaalka u gudagelin haddii aad nagu cusubtaan ugu soo biir ka mid noqo walaalaha halka aan ku midownay qaybtaas comment inuu rab wixii fikirkaaga ama talay tusaalaha mahadsanidin soo dhawaada nambarka koowaad waa afkaaga qofka afkiisa geliya cad xaaraana ama wax xaaraana cuna waxaa liidata caqiidadiisa caqiidadaadu mar haddii ay liidato caqiidadaadu hoos u dhac weyn samayso oo aad noqotid qof aan caqiidadiis toosneenna wax badan oo noloshaada ayaa iska bedeli doona haddii aad tahay qof xaaraanta quuta qof xaaraanta raadsha qof mar walba waxa islaameed uun quudanaya waxaa loo baqaa diintaada aakhiradaadana waa loo baqaa waxaa laga yaabaa inaad mudatidba cadaab aliimo aad iyo aad u daran qofka xoolaha dadka looga digo xoolaha dadka cuna inta badan ma noqdo qof dhowrsani badan qof wanaagsanna ma noqdo hadduu qofkaas allah subxaana watacaala u toobad keeno oo si dhaba ugu toobad keeno ilaahi subxaana watacaala farahana ka qaado wixii xumaayo faraha kula jiray markaas waxaa dhacday in raxmadda ilaahay uu helo balse haddii uu sidaas ku dhinto waa loo baqaa allah ayaana ah mid mar walba xaggiisa loo laabanayo ciddii waxa uu fara yeesha waxa uu ka reebana ka harta waxa ay noqdaan kuwa liibaanay aakhiradooda iyo adduunkoodaba nambar 2 waa ishaada mar walba oo aad ku fiirisid waxa xun waxa daran waxa baktiga waxa fasahaada qalbigaagu mar haddii uu fasahaadana waxaan dhici kartaa in noloshaada ay dhan ay noqoto mid fasahaadsan noloshaada oo dhanna waxaa la rabaa inay noqoto mid dhowrsan haddii aad arday tahay waxaa la rabaa inaad ka dhowrsanaato waxyaabaha xun oo dhan oo keenaya in noloshaadu ama qalbigaagu uu noqdo mid fasahaadsan oo aad tahay qof mar walba baktiga iyo balaayada u dhow haddii aad xaaraanta ku fiirsanayso sidoo balaayada bakti ku fiirsanayso waa dhib kuu gooniya noloshaada ayaa hagaagaynin mar walba xumaanta ayaad ku dhex jiraysaa haddii aad tahay qof inuu wax dhibo u soo baxaya dadka fiirinayo midkii ka liita oo dhacaya xoogaya tuuri inta soo qaata dadka ka dhacaya moobeelada hub inta soo qaata dadka moobeelada ka dhacaya dadka masaajidada u diidan qof markii la arko laga naxayo aragtidiisana xun tahay asiga dhan dulleysan yahay haddaad noqotid waa qof dhib badan waa aad iyo aad baa looga wanaagsan yahay inaad noqotid qof mar walba laga naxo aragtidaas adiga micnaha waxaad samayday ayaa keenaya in mar walba laga naxo ishaada haddii ay fiyowdahay adiga waxaa lagaa rabaa ishaada waxa ugu wanaagsan inaad ku aragtid cibaadada alle inaad ku aadid oo aad waddadaad qaadaysa iska hubisid waxay keentaa in dadku ay ku jeclaadaan isha haddii aad laadahay oo indhala-aan tahay ma aadan baxdeen qofna maada dhacdeen qofna maada dhibteen lidkeed waxaa ah cibaado kuma aadan aadeenu waddada ma aada fiiriseen haddaad cibaado rabti inaad aado waa inaad ul haysataa ama aad haysta qofku gacan qabta qalbigaaga waxaa saameeya waxa ishaada ku fiirsatid ishaada mar walbay hagaagsan tahayna waa mar walba qalbigaagu uusan fasahaadin nambar 3 waa dhagahaaga waxa inta badan aad dhegaysanaysid ayuu noqdaa qalbigaaga haddii wax daran aad mar walba dhegaysanaysid qalbigaagu wuu madoobaadaa qalbigaaga haddii uu madoobaadana wax badan oo noloshaada ayaa wada madoobaanaya qalbigaagu haddii uu madoobaado digsi gubtay noqdana waxaad noqon doontaa qof ka shalaaya waxa uu sameeyey madoobaashaha qalbiga waxaa saameeya dhegtaada waxaad ku dhageysatid
ood inta badan dhegaysatid ayaa qalbigaaga saameyn doona. haddaad qur-aanka iyo wacdiga dhegaysatid qalbigaaga wuu hagaagi doonaa, mid dabacsan noqon doona. haddaad heesaha iyo waxyaabaha munkarka, waxyaabaha maalayacniga, waxyaabaha baktiga dhegaysatid oo u badan tahay dhankaas xumaanta mar walbana, qalbigaaga wuxuu noqon doonaa mid madoobaaday, mid digsi gubta u ekaaday ayuu noqon doonaa qalbigaagu. haddaba si uu qalbigaagu u noqdo mid toosan oo wanaagsan oo hagaagsan, fadlan isku day in waxa wanaagsan aad dhegaysatid. qofkii dhegaysta heesaha waxa uu la kulmayaa ciqaab daran. bal ka waran haddii markii aad aakhiro tagto dhegahaaga lagaga shubayo naar saas naareed dii lagugu shubayo, bal ka waran oodna ku kasbatay waxaad dhegaysanaysay oo lagu yidhi ha dhegaysan, iska dhaaf. teda kale qofku waxa uu dhegaysto oo u badan yahay ayaa qalbigiisana dega. nambarkii koowaad markii hore wuxuu ahaa waxa afkaaga aad geliso. lambarka labaad wuxuu ahaa waxa ishaada ku daawatid. lambarka saddexaad wuxuu yahay waxaad dhegaha ku dhegaysatid. saddexda way saameynayaan. qofka afkiisa waxa uu geliyo ayaa noloshiisa dhan saameeya. qofka ishiisa wuxuu ku arko ayaa noloshiisa dhan saameeya. qofka dhegihiisa wuxuu ku dhegaysto ayaa noloshiisa dhan saameeya. waxaan Allah subxaana wa tacaala inooga baryaa dhammaanteen inuu naga dhigo kuwo xaqa qaata, kuwo xaqa ku dhaqma, kuwo ka fogaada xumaanta iyo faaxishada. mar walbo saddexdan aad ka fiirsatid oo saddexdan aad hagaajisid, waa mar walbo aad guulaysatid. waa mar walbo qalbigaaga, afkaaga, maskaxda, noloshaada dhanba ay toosto. balse haddii aadan ka tegin, waa mar walbo noloshaadu burburto. waxaan rajaynayaa muuqaalka inaad wax un ka faa'iiday. hada wabillahi tawfiiq. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.